wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland iyo wafdi oo hogaaminayo oo soo gaaray magaalada Boorama ayaa guud ahaan bashaaciyay in laga soo qayb qaato dhismaha xarunta dayactirka kutubta Quraanka Kariimka ah ee Bariga Afrika oo markii ugu horeysay laga hirgelin doono magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Mas'uuliyiintani oo goobtani ay ku helinayeen mas'uuliyiinta degmada Boorama, maamulka wasaaradaha dhexe ee gobolka qaarkood iyo waliba siyaasiyiinta madaxa bannaan leh ayaa waxa halkaas lagu soo bandhigay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta kitaabka Quraanka Kariimka ah iyo sidii loo dayactiri lahaa. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay faahfaahin kooban ka bixiyay muhiimadda ay leedahay xaruntani iyo dhismaheeda hadda la bilaabi doono Sheekh Jamaal Yuusuf Maxamuud oo ah gudoomiyaha Jamciyadda Nuurul Islaam oo iyadu gacanta ku haysa dhismaha xaruntani lagu dayactiri doono kutubta Quraanka Kariimka. goobta aan joognaa runtii waa goobtii loogu talagalay in laga dhiso xarunta kitaabka Quraanka Kariimka. markii hore waxay mareysay laga dhiso laakiin maanta laga dhisayo oo waxa bilaabmay marka insha Allah taala bilaabmayna dhismihii baa bilaabmay. intaasi kadibna waxa hadalka iska daba maray mas'uuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani lagu shaacinayay sidii ay dadweynuhu uga qayb qaadan lahaayeen tabarucaadka ku aadan dhiska xarunta dayactirka kitaabka Quraanka Kariimka. waxaynu joognaa goobtii laga dhisayay meeshii kutubta Ilaahay lagu xafidi lahaa lagu dayactiri lahaa insha Allah bidmillaahi kariim. khayraadka wanaagsan ee ay maxahay jimciyadan ay sameysay ay noo bilowday ka soo qayb gala waxa weyn kitaabkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo dayacan oo maxahaydin xashiishada laga soo ururinayo meel xun laga soo ururinayo oo la dayactirayo oo dub loo habaynayo dub loo hagaajiyo cid kasta oo codkayga maqlaysa oo baaqa maxahaydan maanta dirayno maqlaya inay maxahaydin jimciyadan wanaagsan ee khayrka wada inaad wix aad ku soo deeqi karaysaan aad ku soo deeqdaan. wax wanaagsan ayaa halkan ka socda loo baahnaa mashruuc lagu intifaaco aakhiriya duudaba cidii wax ka geysatana ay Ilaahay hortii waxaan ka helaysaa ajri weyn. dhismaha loo fulin doono maxaa ku raadayay dayactirka kitaabka Quraanka Kariimka ee ay hawshiisa wado Jamciyadda Nuurul Islaam oo ay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeentu ay siisay dhul laga dhiso maxaa ku raadayay xarunta dhisme. message aan diraynaana waxa weeye dhismahaasi lacagta ku baxaysa maxaa ku raadayay jamciyaddu waxay ka rabtaa dadweynaha aan inagu kow ka nahay inaan ka qayb qaadano ayaana loo baahan yahay hadii la yiraahdo. dhulka sababta aanu bixinay waa sida isku duuhu sheegay in la kaydiyo oo la ilaaliyana waan ugu talagalay dhulka danta guuda. waxa kale oo iyaduna hadalqaadkeedu ku jiray in masaajidiyadna loo baahan yahay goobtii laga bixin lahaana kulley waanu ka wada hadalnay isaguna waa diyaar. halkana waxaan ugu talagalnay in halkii kutubta lagu xafidi lahaa sida sheekhu noo waramayay yaani xasanaadka uu leeyahay iyo waajibaadka naga saaran inaynu ilaalino kitaabka Ilaahay waa wax inaga wada saaran. ugu dambeyntiina waxa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland isagoona halkaasi ka shaaciyay in bulshada guud ahaanba looga baahan yahay inay ka soo qayb qaataan sidii loo hirgelin lahaa xaruntani nooceedu ugu horeeyo ee laga hirgelinayo magaalada Boorama. waxaan dhamaanteen rag iyo dumar isugu nimi iyo mas'uuliyiinba inaynu maanta marxaati ka noqono oo dhagax dhigno oo bilowno goobtii lagu dayactiri lahaa kitaabkeena Quraanka Kariimka ee hadalka Ilaahay iyo goobaabinayno mujtamaceena wanaagsan ee qiimaha badan rag iyo dumar waxaan isugu nimay inaynu goobaabino inaynu ka soo qayb qaato dayactirka kitaabka Quraanka arkaysaan sida uu noqday iyo sida uu go'an yahay. waxaan ugu baaqayaa dhammaan gobolada iyo deegaanada horena ay wax uga jireen inay ku daydaan magaalada Boorama. Ibrahim Suxufi, Bulsha TV, Boorama.